waqtigii BBC-da aan joogay oo 68 ilaa 74 lama soo wada koobi kara caawa laakiin waxaan ka xusuusan oo ugu sii mudan xaggayga af Soomaaliga oo waqtiga markii aan bilaabay 68 aan qornayn marka ay ku khasban tahay af Ingiriisiga oo hor yaala oo live warku yahay faalladu ay live tahay ku hor yaala inaad af Soomaalina marka dadka ugu waranto Ingiriisigana uu ku hor yaala aad bay noogu adkay laakiin waan baranay ilaa maantana waan isticmaalaa xirfadda caynkaas ee BBC-da aan ku bartay taas ma iloobi karo waxaan iloobi karin madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliya 1969 Dr. Cabdirashiid Cali Sharmaarke magaalada Laascaanood markii lagu toogtay nin ciidamada booliiska ka mid ah ku toogtay live baanu ku jirnay warkii baanu akhriinay war degdeg ah ayaa markiiba la soo galiyay stuudiyaha la noogu keenay akhrigiisii taama iloobiyo halkaas taasoo waa maalin aanan iloobi karin oo argagixisana nagu dhalisay oo xumo nagu dhalisay xanuun nagu dhalisay in wadankii laga yaabo inuu khalkhal cusub galo iyo nin madaxweynaha oo isagoo waxba galabsan la dilay waxay ahayd wax laga naxo aad looga naxo waxaan xusuusanahay Hayle Selassie boqorka Itoobiya oo loo soo oo yimid safar ku yimid rasmiga magaalada Muqdisho waa markii ugu horeysay ee boqor Itoobiya oo dhulka Soomaalida أو يمادو جمهورية الأورنجري مركا إيربورت كان تجي صور يستي